asxaabey horta xalay ilaa maanta baraha bulshada sawiradeeda lasoo dhigaya aniga wiil asxaab aan ahay oo la leeyahay gabadhan jaceyl dartiisa isku dishay ilma adeeryaalo jaceyl iska daaya nacayb xitaa inaan isku dilo diyaar uma ihi dabaq iska daaya joodar xitaa inaan iska tuuro diyaar ma u ihi asxaabteyda familkeyga qaraabadeyda dhammaan waa murjisan ilaaha laga cabsado ilaah ka cabsada yaaqay waxaadan hubin ha sheegina qof walba oo sawirkeyga soo geliya waxaa ka codsanaa inuu bixiyo qof walba oo soo dhigan adduun iyo aakhir waxa uu ma haysti cafis uu iga yahay fadliga ramadaanka dartiisa waxba idiinma haysta laakiin beenta aa faafinaysaan hala joojiyo ilma adeeryaalo shalay toole ayay ahayd markii baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube lagu baahiyey in Faadumo oo ahayd gabadh dabaq ku yaala magaalada Baydhabo iska soo tuurtay kadib markay jacayl ama masayr ay qaaday wiil ayaga isqabeen. haddaba wararka lagu baahiyey baraha bulshada ayay beenisay Faadumo waxayna sheegtay inay guud ahaan baanay waxaasi waxba ka jirin. aan adduunka jooge ha igeynin aakhiro aan adduunka jooge ha igeynin aakhiro. shalay ayay ahayd markii warbaahinta Soomaalida sida Facebook, YouTube lagu baahiyay Faadumo ay dabaq ku yaala magaalada Baydhabo iska soo tuurtay kadib markay masayr ay qaaday. waxay dhaheen waxa caawa isbitaal ku yaala magaalada Baydhabo lagu dabiibaya xaaladeeda caafimaad iyada iyo oday ay ku soo dul dhacday oo dabaqa hoostiisa fadhiyay sidee hadalka u dhigeen. balse warkaas ayaa guud ahaan been ahaa oo ay ku baahiyeen baraha bulshada. waxay sheegeen oo been abuura in gudoomiyaha magaalada Baydhabo uu sheegay in dhacdadan ay weli baaris ku hawdaan oo wixii ka soo kordhana ay la wadaagi doonaan bulshada. haddaba gabadhii dhacdadaasi ku dhacday ee wararka been abuurka bishan barakaysan ee Ramadaan laga baahiyey ayaa ka hadashay iyadoo muuqaal 58 daqiiqo ka soo duubtay kuna beedisay guud ahaanba wararkaasi. Faadumo ayaa sheegtay inaan wararkaasi aanay waxba ka jirin. waxay tiri jacayl baa sheegtay xitaa nacayb isuma dilayo. reerkayga iyo familygayga ayaad warwariyay walbahaar geliseen. waa bil Ramadaan ilaahay ka baqayay tiri. balse waxay sheegtay inay cafiday guud ahaanba dadkii warkaasi been abuurka ka baahiyay. waxay sheegtay in fiidiyoyo la soo jarjaray la soo geliyay dabaq Baydhabo ku yaalana la soo dhigay. haddaba Faadumo oo warkaasi guud ahaanba beeninaysa waa kale muuqaalka nala daawada fadlan fiidiyogana sii like garee siina share garee si uu gaadho bulshada Soomaalida ay nooga waantoobaan wararka been abuurka ay ku baahinayaan baraha bulshada. asxaabey horta xalay ilaa maanta baraha bulshada sawiradeeda lasoo dhigaya aniga wiil asxaab aan ahay oo la leeyahay gabadhan jaceyl dartiisa isku dishay ilma adeeryaalo jaceyl iska daaya nacayb xitaa inaan isku dilo diyaar uma ihi dabaq iska daaya joodar xitaa inaan iska tuuro diyaar ma u ihi asxaabteyda familkeyga qaraabadeyda dhammaan waa murjisan ilaaha laga cabsado ilaah ka cabsada yaaqay waxaadan hubin ha sheegina qof walba oo sawirkeyga soo geliya waxaa ka codsanaa inuu bixiyo qof walba oo soo dhigan adduun iyo aakhir waxa uu ma haysti cafis uu iga yahay fadliga ramadaanka dartiisa waxba idiinma haysta laakiin beenta aa faafinaysaan hala joojiyo ilma adeeryaalo asxaabey horta xalay ilaa maanta baraha bulshada sawiradeeda lasoo dhigaya aniga wiil asxaab aan ahay oo la leeyahay gabadhan jaceyl dartiisa isku dishay ilma adeeryaalo jaceyl iska daaya nacayb xitaa inaan isku dilo diyaar uma ihi dabaq iska daaya joodar xitaa inaan iska tuuro diyaar ma u ihi asxaabteyda familkeyga qaraabadeyda dhammaan waa murjisan ilaaha laga cabsado ilaah ka cabsada yaaqay waxaadan hubin ha sheegina qof walba oo sawirkeyga soo geliya waxaa ka codsanaa inuu bixiyo qof walba oo soo dhigan adduun iyo aakhir waxa uu ma haysti cafis uu iga yahay fadliga ramadaanka dartiisa waxba idiinma haysta laakiin beenta aa faafinaysaan hala joojiyo ilma adeeryaalo. ma ku nooshahay gobolka Columbus Ohio ee dalka Mareykanka
ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse ma kuugu badan yihiin biilashaad u dirto dalkii hooyo ma tahay qof suuqa geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Columbus Ohio hadday jawaabahaasi yihiin haa waxaa tahay qofkii ku habboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product haddaba daawade ka mid noqoshada shirkadda Forever Living Product kuma xidhna wax shuruuda oo aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 jir inaad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilowdid marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto kaliya magacaaga emailka addresskaaga telefoonka numberkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqonaysid shirkadda Forever Living Product shirkadda Forever Living Product waxaad ka helaysaa warqadii contractiga ee aad shirkadda la gashay ID number adiga ku gaara oo aad kaga adeegan karto adduunka oo dhan guud ahaan bahab online qiimo dhimis iibka aad samaysay oo ah u dhaxaysa 5% ilaa iyo 48% oo cadad u weyn maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product shirkaddani waxay soo saartaa product ama alaabo loo isticmaalo isqurxinta caafimaadka iyo miisaan dhimista iyo waliba miisaan kordhinta waxaan ay ka farsamaysaa geedka loo yaqaan dacarta iyo malabka wax kiimika ahna ma lahan waxa ay samaysaa shirkaddani oo ay samayn doontaa ganacsi aad adigu gaar u leedahay oo aad maamulatid adna aad ku samaysan kartid dhaqaale aad xad lahayn oo aad ku maaraysid biilasha oo aad kaga maarantid caqabadaha warehouse-ka waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo si iswada caawimaysa waxaad heli doontaa tababaro iyo aqoon kororsi bilaasha waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintoodii qiimahooda leh haddaba darajooyinkani imise ayay u qaybsamaan waa 13 darajo oo midka ka kala sareyso ay ka dhaqaale badan tahay ta koowaad ayaa assistant supervisor assistant manager senior manager sorting manager diamond manager iyo qaar kale oo badan dhammaan darajooyinkaasi waa kuwa aad xaqiijin kartid midka ay ka sareysana aad bay uga dhaqaale badan tahay waxaad kaloo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo insensitive oo ay ka mid yihiin Forever Car Plan oo 3 gaari oo dalxiis free ah sanadkii 2 jeer waxaad kaloo ka helaysaa shirkadda Forever Living Product Chaki oo magaciisa la yiraahdo Chairman Bonus oo lacago waaweyn dadka qaar mutaysan karaan oo malaayiin dollar gaaraya Gem Bonus waxaa la yiraahdaa iyadana oo ka mid ah waxyaabaha aad ka helayso shirkaddan in aad shirkadda ku yeelatay share joogta lacagaha trillions dollarka ee ay sanad walba faa'iidi doontana aad qaybtaada qaadatid haddaba haddii ay diyaar tahay in aad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product aad ku nooshahay gobolka Columbus Ohio ee dalka Mareykanka fadlan hore u gaadh shirkadda Forever Living Product si aad ula xiriirto wixii macluumaad oo faahfaahin ah fadlan wac telefoon numberka shaashada ku muuqda oo WhatsApp iyo waliba link